wacan oo wanaagsan dhammaantiinba halkan waa Live News Somali TV. guud ahaanba dalkani Kenya ayaa ka soconayo olole doorasho kaasi oo ku aadan xilliga markaasina doorashada la qabanayo. musharax waliba wuxuu soo bandhigayaa ujeedada uu taagan yahay iyo ballanqaadyada uu bulshada u fulinayo. waa war cusub iyo waali kale. musharaxan oo bulshada inta badan ay u taqiino macalimu oo si weyn garab u siiyo dadka danyarta isboortiga iyo waliba isagoo badankii horaan uga soo shaqeeyay dhanka caafimaadka, nabadgelyada iyo waxbarashada. macalimu wuxuu isla markaa xilligan uu doonayaa inuu hanto gambarka ama kursiga MCA ee Damajali Ward. wuxuu dhammaan bulshada ku dhaqan deegaanka Damajali iyo waliba inta ka soo jeedo ugu baaqay in ay ku taageeraan kuurahoodii maadaama uu xilligan u lolamayo gambarkaasi. wuxuu sheegay in rag badan ay iyagu markaasina ku tartamayaan gambarkaasi, hase ahaatee bulshada ay aad ugu hiiliyaan si ay u gaaraan himilada ay doonayaan in ay ku guuleystaan, bulshadana ay u qabtaan waxyaabaha ay iyagu ballan qaadayaan. hayeeshee musharaxiin hore ayaa iyagu sameeyey ballanqaadyo kala duwan kuwaasoo qaarkood ka dhabeeyey qaarna welina isla markaa ay u harsanayeen. musharaxan oo inta badan ballanqaadyo kala duwan bulshada u sameynayo, bulshadana waxay iyagu ay qabaan inuu arrintaasi uu ka dhameyn doono. haddaba wareysi gaar uu siiyey Live News Somali TV ayaa waxaa hadaladii wahaa. hase ahaatee intayni aynu muuqaalkan u gudagalin, fadlan waxayna kaa codsanaynaa in aad like saarto kadibna aad share dhahdo. mahadsanid. waa masalaad oo dadka amasalayso kormeero oo dawladda aad ku subinayso iyo sharci dejin aad u weyn. waxaan rabaa inaan ka meel keeno dadweynaha Damajali aan maartay wax u qabto and allow free movement musharax iyo maartay aad u weyn. musharaxiintii ballanqaadyadii sameeyey dabadeedna adiguna dabcan saad sheegtay in aad ka dhaweyn doonto bulshada, wax badan aad u qaban doonto. deegaanka Damajali aan iraahday deegaanka Damajali wuxuu bahwadaag la yahay xuduudda ama dadka markay u soo adeeg doonanayaan magaalooyinkan waa in ay soo maraan dhinacayo xagar dheer ama meelahaas oo kale. maxaa kaaga qorsheysan in dhanka wadooyinka oo kale ama yani dhanka isku socdaalka fududeynta oo kale inta horta aan dhinaca socdaalka aan u gudbin wax waxaa jira la track record yani maamul aan qabtay ugu horeyso maamul baa soo qaban jiray dadweynahana way ogyihiin meel alla meeshii aan ka soo shaqeeyay wixii aan soo qabtay wixii aan soo qaban waayay aad u weyn. marka haddii aan u soo gudbo arrintan hadda aan leedahay wadooyinka kuwa county government hoos imaadaan waxaan isku dayay in maaragtay isu socdaalka aan maaragtay aad u wanaajiyo wadooyinka aan weyneeyo waxalla wixii wadooyinka hagaajinayaan aan ku tallaabaa. hadda lagu jiro waqti doorasho in horta ammaanka ay muujiyaan, in ay iska ilaaliyaan hadallada maaragtay gafka ah ama maaragtay sifaan colaad loo kicin. aad u weyn. maalinka doorashadan in ay si fiican u soo baxaan, nin walba oo maaragtay kuura goosta kuurihiisa uu ku rido aad u weyn oo maaragtay uu coday. haddii kuura aad goosatay oo aad codayn weysana waad maaragtay kuuraha asaga waad khasaartay. wahga haddii maroraan ku sheegaan umaleynay aniga iguma horeyso maamul aan qabto dadweyne aan u qabtay inay maanta igu horeyso ma aha. ka hor baan u qabanayay telefoonkaygana ugu furnaa. waa tahay aad baad mahadsan tahay. waan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo aad igala qayb gashay barnaamijka. waa musharax MCA deegaanka Damajali Ward oo ka tirsan ismaamulka Gaarisa gaar ahaan deegaanka Dhadha. haddaba sidoo kale bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan inta ku dhaqan deegaanka Damajali iyo inta ku geedamada wuxuu ka codsaday in taageero xooggan ay u muujiyaan. haddaba sidoo kale musharaxa ayaa dhammaan bulshada taageero ka doonaya. haddaba sidoo kale inkastoo bulshada badankood ay yiraahdaan musharaxiinta ballanqaadyo ay fuliyaan ma aysan ka dhabayaan badan